hadda caqiidadii iyo diintii awal xoogaa aynu ka ladnayn ayaa hadda loo soo dhigtay. waad ka waraysaan asbuucan waxa magaalada caasimadda Puntland ka dhacay in wadadii laamiga ahayd oo shaarici la wada maray ilaa meelaha batroolka ama shidaalka lagu gado magaalada barigeeda ilaa ay bardada waco calaamadii kristada in lagu qoray maalin cad dhawaan habeen saddexaad bay habeen afraad taalo magaalada in laga dhisay dhinaceed la leeyahay 18 gaal xamar waa hore ku dhintay ayaa lagu xusayaa loo dhis oo lagu qiimeeyay ilaahay fadliga rag baa u kacay taaladiina cagta la mariyay way ku mahadsan yihiin kristadii wadada lagu qorayna iyadoo wax yar ay harsan yihiin baaran inta kale la baabiyay waxaas dadka qoray ama sameeyay meel kama iman magaalada ka yimaad waxa la ii sheegay laamiga ninkii kristada ku qorayay nin gaal inuu ahaa ciidan waardiyeynayna inuu jiray ninkii dhowr jeer sii maray oo soo maray oo yiri waxaan u qabay dad wadada ka shaqaynaya ayaa warka ii sheegay warkiisa lagu kalsoon yahay dad badan oo kalena way sheegeen marka ninkaasi cirka kama soo dhicin ee airportku ka soo degay ciidanka isagu ma keensan magaaladu ka qabsaday oo laga siiyay waxa wadada ku qoray waana ka tagay kullayba dawladda intii qusaysay waxba aan weydiiyay wax wara kama hayna yiraahdaan hawshaas ama qolada wadooyinka ha ahaato ama dadka kale oo ka warhayn kara war kama hayna yiraahdaan laakiin dawladdu iyada laga rabaa wixii waxa sameeyay waa istifzaaz dadka dareenkooda la fiirinayo waa miqyaas layna ku cabirayo intee baan diinteena aan u caroonayn intee baan gaalnimada necebna intee baan maxaan ku yiraahdaay munkarka aan ka hortagayn intee baan macruufka aan farayn waa layna cabiraya laakiin ilaahay fadligiis waa laga carooday waana la baabiyay waxa harayna cagta la marinay cidda waxa samaysay hadii la ogaadana waa lala dagaalamay dhabtu sidaa waa lala dagaalamaya waa la iska dhicinay quraanka iyo xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam oo la ogyahay mowqifay ka taagan yihiin dadka wax ridda keenaya ama diinta in laga baxo in la tuso ama loogu yeero waa rogtihiin dil way dastuurka Puntland oo dadka in badan ay xusaan markay siyaasadda noqoto kaliya ayaa la xusaa laakiin qodobada muhiimka ah oo diinta ilaalinaya in badan dan lagama galo waxa kamid ah diin dadka ummadan dhulkan degan waa dad islaam ah diinta islaamka diin aan ahayna laguma dhex fidin karo waa mamnuuc cidii ku dhex fidisana waa dambiil ikhwaani fil iimaan marka diinteena iyo caqiidadeena ma loo soo dhigtay dadka habeen gudihiis taala dheer dhisay oo calan dawlad ajnabi oo gaala ah ku sharxay oo qoraal ku sameeyay shaqo hawl yar ma ah dad badan baa shaqada ka shaqeeyay lama oga baa leeyahay laakiin kulli waa la ogaan doonaa marka tusaale iga ahay awal internetka iyo facebookyada iyo balaayada ka buuxdo dhalinyarada akhlaaqda diintooda lagu dhiminayo waad ka waraysaa tira male allah musta'an haloo soo jeensado ilaahay diintiisa in la difaaco qofna qof xil uma sido sidii nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam man kara minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi qof walbo ina kamida waajibku waa saaran yahay hadhow aniga intaas waajib igama saaray iyo wadaad bi qusaysay ama dawladii qusaysay qofna looga harimayo qof walbo ina kamida waajibkaas intuu ka qaadi karo ha ka qaad munkaraadka hadii laga aamuso maxaa imaanaya adduun iyo aakhiraba way ka fasaadaysaa dib badan baa dhacaysa oo waxa kamid ah munkarka oo laga aamuso isagaaba macsiyo ah dambi intaas kugu filan inaadan ka hadlin adoo wax ka qaban kara inaadan ka qaban intaas qofku ku dambaabaya haw maray hadaa munkarka ka aamusti in sidaa la isaga haray reer bani Israa'iil waa ogtihiin waxa lagu eedeeyay oo ilaahay uu ku lacnaday waxay ahayd kaanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kaanu yaf'aluun munkaraadka ay sameeyaan iskama reebi jirin waa isu dayn jireen saas ayaa dhibaatada ay ugu dhacay oo ilaahay ugu carooday subhanahu wa ta'ala marka mujarrad in munkarka laga aamuso oo aan laga hadlin oo aan la reebin
macruufka aan la farin ayaaba dembi ah. sidoo kale munkaraadka oo laga aamuso ilaahay diintiisa aan loo caran waxaa ka imaanaya yujarriu al-usaata wal-fasaqa, dadka xun baa dhiiranaya. waxaan hadda la sameynaya waa layna ku dayaya. haddaan maanta wax laga qaban oo dadkii waxaa sameeyey aan la soo qabin oo aan la ciqaabin, bari kaniisad baa magaalada laynoo ka dhisay. maxaa yeelay dee wadda maxaan ku idhaahdaay la maray ummaddu noqotay oo aan dareen lahayn, saasaa loo arkay. marka haddaan munkaraadka wax laga qaban, dadka xun oo dhan ayaa dhiiranaya, macaasidii ayaa badanaysa, adduun iyo aakhiraba dadkii waxa weeye dhib weyn baa ku imaanaysa, oo dadkii diintoodii adduunkoodiiba waa laga fasaadinaya. marka in wax laga qabto dadka xun oo munkaraadka laga hortago, jiritaankeena iyo nolosheenna ayaa ku jira. munkarka inaan la farin, inaan la iska reebin, oo aan laga caron, oo macruufka aan la farin, sidoo kale waxaa ka imaanaya wixii la yaqiin oo diinta ah oo cilmiga ah ayaa meesha ka baxay. cilmiga ama ha ahaado cilmi diineed ama cilmi adduun ha ahaadee, haddaan lagu shaqayn waa baaba'ayo, faa'iido yeelan mayo. imisa magaalada culimo joogta, kumaan kun waa gaara. dadku waa wada culimo maanta, kulli dowladdu dad badanoo culimaa baa ku jira, ismadaa culimo ah, nabadoonadaa culimo ah, aqoon-yahanadaa culimo ah. haddaan cilmiga ilaahay ku siiyey aanan ku dhaqmin, adoo aan cilmi lahayn oo kale oo jaahil ah ayaad noqonaysa. cilmiguna wuxuu ku barakoobayaa macruufkana in lagu faro, munkarkana in lagu reebo oo looga hortago.